السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahadcelin la wadaagaa sidii raggii ugu horreeyay ay ugu mahadceliyeen labada waddan ee mataanaha ee ku mataanoobay maxaa ku wadaay wadajirka iyo danaha qaabilo danaad iyo aad uga mahadcelinaya waxaan mahad gaaban maadaama intii iga horreysaba ay tiri aan ku xojinayaa oo odhanayaa intii soo qabanqaabisay kolkan quruxda badan xafladda quruxda badan ee waqtiga gelisay guud ahaan dalka mar labaad waxaan ugu mahadcelinaya labada waddan guddiyadooda iyo jaaliyadahooda iyo inta ka soo qayb gashay iyo soomaalida kale ee xafladda tiriba oo ugu mahadnaqayaan hadalka caawa halkan ma rabno inaan idhaaho dhowr qodob baan rabaa inaan isku taago marka ugu horreysa waxaan hambalyo u diraynaa sida ragga iga horreeya sheegeen buuxda waaga cusub ee u beriyey ummadda soomaaliyeed iyo madaxweynaha ay ka muuqato wadaninimada iyo soomaalinimadu maxamed cabdulaahi farmaajo oo noqday madaxweynaha soomaaliya waxaanu soomaali la wadaagnaa farxadda ka muuqato soomaali oo aad moodo in midnimo soomaaliyeed ay muuqatay aad iyo aad baanu u hambalyenaynaa u soo dhoweynaynaa u taageeraynaa dowladda cusub ee dhalatay ee soomaalinimada ku muuqato waxaan halkan hambalyo uga dirayaa oo aan rabaa inaan xuso dhallinyarooyinka soomaaliyeed oo aad waddooyinka moodo in sidii soomaali loo heli lahaa ay u qalab qaadatay xubnaha ka soo jeeda golaha baarlamaanka soomaaliyeed ee dhallinyarada ah ee iyagu sababay inuu maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne noqdo aad baan ugu mahadnaqayaa si gaar ah iyo guud ahaanba ururada dhallinyaro ee adduunka ka aasaasnay ee isu taagay sidii mar labaad soomaali loo heli lahaa aad iyo aad baan kuwaan ugu mahadnaqayaa haddaan intaa ka gudbo waxaan soo dhoweynayaa xuska sanad gudada sanaad ee imaanka halkan caawa halkan isku yimid ee maamul goboleedka qaabtay oo sanadkii shanaad maraya waxaa laga yaabaa in bulshaweynka kala qaabtay waa in maalmahan dambe ama muddooyinkan dambe ay maxaan ku dhadaa muujinayaan hugul baa ka dhex muuqda sidaan dareemayno waxaan rabaa inay calooshiigu ku samaato wixii maamul goboleedka qaabtay loo aasaasay ee dastuurka loo sameeyey ee aanu baarlamaanka aan u leenahay wax aynu ka tanaasulay ama ka tanaasuli doono maaha iyadaynu u taagannahay iyadaynu leenahay iyadaynu maxaa ku dhahdaa aan doonnaa sidaasaa loo gelay kama tanaasulinayo hana u qaadanina taas haddii siyaado maxaa ku loo doondoono mar walba ummadda reer qaatumo waa maamul goboleed jira oo soomaaliyeed danihiisa iyo ismaamulkiisa hoosana lahaan doona taasi waa mid maxaan ku dhahdaa meel ku taala waa mid aynu qaadanay waa mid maxaan ku dhahdaa inoo ah go-aan inoo ah waanu isla qaadanay kamana aynaan waxaan rabaa inaan kelimad ku noqdo waxaynu soo dhoweynay oo aanu soo dhoweynana haddeeda mar walbana aanu muujinaynaa soo dhoweyn dowladda xamarka dhalatay ee uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kelimad baan rabaa inaan ka dabageeyo waxaan u malaynayaa sida maamul goboleedka qaatumo midbada loogu aasay maamul goboleed soomaaliyeed loo aasaasay ma jiro intaan maamul goboleedkaa la samay sidaa loo tihiin 6 bilood oo sifeeyaa la sameeyey oo bulshada loo qabanqaadinayay sidaa isgoyna isugu iman lahaayeen waa maamul goboleedka keliya dariiqaa maray 6 bilood baa raggan ka mid ah guddoomiyaha jaaliyadda halka la fadhiya cabdillaahina uu ka mid yahay aanu u wareegay sidii bulshada reer soosanaag iyo cayn isku keeni lahaa geed hoostiisay fadhiisteen hay-ad iyo waddan iyo cid maxaan ku maalgelinaysay ma jirin iyagaa taladooda ahaa annagaa taladeeda lahayn annagaa bulshada isu keenay hadday shirk iyo shariif caaqil isim siyaasi ay tahay tala buuxda isla qaateen ma jiro maamul goboleed habkaa
madaxweynayaasha Soomaaliya ee ka horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ku dhiiran kari waayeen inay maxaa aqoonsi buuxsiiyaan waxaan ka filaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan soo dhaweynayno inuu haddii Soomaalida looga muuqato ay tahay in halka Soomaalidu ay iskaga xanto halka midnimada Soomaaliyeed ay ka timid halka laga aasaasay Soomaalinimadu waa halkii lagu aasaasay maamul goboleedka Khaatumo ee Tala waa halka Soomaalinimadu ama ay ku kala go'do ama ay maxaa iskaga ka midowdo waxaan ku rajaynaynaa inuu ku dhiirrado waxaan rabaa inaan wada kelmadooda idhaahdo ninkii haddeer ka horreeyay madaxweynaha xasan sheekh maxamed oo isaga aan haddeer u hambaliyaynayo sida nabadgelyada leh hortinta ku wareejiyey marar badan waxaan odhan karaa dareenkiisu ma diidanayn maamul goboleedka Khaatumo laakiin markastoo uu horkeeno Khaatumo hareerihiisu eegi xagga yaa ka haya xaggan wuxuu eegay maamul goboleedada ilaah laga haya oo aan iyagu malaha siyaasadoodu waafaqsanayn in la aqoonsado maamul goboleedka Khaatumo leedahay wuxuu ka been sheegay ama ku dhiirin kari waayey rabitaankii Soomaaliyeed laakiin Farmaajo waa u ducaynaynaa in xanuunkaas uusan ku dhicin inuu ku dhiirrado baan ku ducaynaynaa oo arrintaas maxaa ku dhiirrado intaa haddaan ka gudbo waxaan rabaa dadka ku nool maxaa guud ahaanka bulshooyinka reer Khaatumo iyo guud ahaan ee Soomaaliyeedba in midnimo la raadiyo nin aduwaan maxaa Soomaalida la taqaano gabaygu tiriga wuxuu ilko wadajirkooda hilbaha ala ku gooyaan haddii ilko meel taagan yahay arxma feertaan arxda waa hilibka abarka ah oo weliba waa cadsan ma feeran karo hilibka keliya hadduu meel taagan yahay weeye dulada waxaan odhan lahaa midnimaynu wax ku nahay midnimaynu wax ku noqon karnaa haddaynu Soomaali nahay iyo haddaynu reer Khaatumo nahay midnimo inaynu ogaano oo aynu u midowno danaheenna baan aad iyo aad idinku boognaynaa in maxaan ku dhahdaaye midnimaa wax dhasha midnimaa wax loogu noqon karaa wallaahi wax midnimo aan ahayn aan wax ku noqon karnaa nintoos meel cidina kula tegi karto nintoos cidina meel kula tegi karto aanu midowno danaheenna aanu midowno falasku fiiqana aynu iska dayno hebel baa waxda iyo heblaaya wax wadana meel ay geynayso laakiin danta inta hareeraha laga fadhiisto aynu midowno taasaynu wax ku noqon karnaa taasaynu himiladaynu ku gaari karnaa taasaynu kaga meeldhalay karnaa aad iyo aad dhanno labaad iyo saddexaad iyo marafkaasba idinku mahadnaqaya bulshooyinka mataanaha ah ee labada wadan ee Belgium iyo Netherland oo xafladda taniyagu si gaar u soo qabanqaabiyey uguna midaysan waxaan kaloo u mahadcelinayaa inta deegaanada fofo ka timid ee iyaguna xafladda ka soo qayb galay sharafta iyo karaamada ka muuqata golaha aynu joognana aad iyo aad baan maxaan ku rabaa intii soo qabanqaabisay mar labaad iyo mar saddexaadba aan ugu mahadcelinaynaa caawa hadal badan looma baahnaa la leeyahay malaha dhalinyarada guryaha waxay jecesha inay maaragtay Soomaaliya ha midowdo Khaatumana ilaahay khayr arrinkeeda ha ku raxo